tashiya laabtanaysa kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskay kabo kabo malabkii shinnida daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan waxa la soo gaaray amintii aan hawadeedii soo mari jirnay barnaamijkeen dhalinyaradii maanta dabaadkan waxa igu martiyay Axmed Xasan Yuusuf Axmed soo dhawo wandhow walaal ama khair Axmed waa kun bal taariikh nololeedkaaga kooban anaga daawadayaasha noo dulmar bismillaah magacaygu waa Axmed Xasan Yuusuf waxaan ku dhashay ku barbaaray magaalada Burco waxbarashadeedii dugsigii hoose waxaan ku soo qaatay magaalada Burco dugsigii dhexe waxaan ku soo qaatay Hargeysa iskuulka Sheekh Cali Ismaan Agis Riis dugsigii sarana isla magaalada Hargeysa Maxamuud Axmed Cali Secondary School halkaas oo waxbarashadii heer jaamacadeed degree ICT aan ku dhameystay jaamacadda Armas aad iyo aad baad mahadsantahay mar labaadii mar saddexaad waan kugu soo dhaweynay telefishinka caalamiga SBS TV waxaan hadan kugu ka barnaamijkeena guda galo bal in daawadayaasheena waxa tahay maamulaha Mahuraan Technology bal Mahuraan magaca Mahuraan inta barnaamijkeena ugu guda gelin magaca Mahuraan bal noo yarata magaca Mahuraan waxa weeyaan la Mahuraan Technology marka Mahuraan iyo la Mahuraan waxa weeyaan walba kelmadood horta isku mid ah oo waxaan laga maarmaynin marka magaca waxaan ugu bixiyay shirkadda wax weyn technology imika aan ku jirno wax weyn laga maarmaan weeyaan oo dad aragtid xafiisyada ama guryaha meel walba koobaha xitaa la isku yimaado waxa lagu isticmaalo waa technology marka ma jireen qof oranayo waxaan ka maarmayaa inaan document ama video aan sameeyo oo bila computer without computer baan ku sameeynaya qof oranaya ma jiro waayo wixii wax weyn technology ama computer lagu isticmaalo ama aaladaha technology-da ugu dambeeyay lagu isticmaalay marka waxaanu magaca aan ku keenay ama maskaxdayga timi wax weeyaan markaan jawiga deegaanka ama ku noolnahay Hargeysa ama Jamhuuriyadda Somaliland in aad loogu isticmaalo technology isla markaana aad loogu baahdo baahida koowaadna noqday technology-da marka saasaan ugu magac daray shirkadayda la Mahuraan Technology in Axmed in hal abuur ama ganacsi la sameeyo ma hawl yara laakiin in kulli inuu si hirgala way adagtay maxaa adiga caqabadaha kala hor yimi markaad shirkadda sameeysay bismillaah horta ganacsi marka la abuurayo labada mid waa inaad diyaar u ahaato inaad ku guuleystid iyo inaad ku guuldareystid haddana adigoo ku guuldareystay wax weeyaan waa inaad aad u dhabar adeegtaa oo wax walba ka hor yimaata aad u dhabar adeegtaa marka caqabado badan baa aniga iga hor yimi xagga dhaqaalaha oo kale xagga waqtiga oo markaan asaasay shirkaddan gelin horena waxaan dhiganay jaamacadda gelin dambana ganacsigaygan watay marka meherada gelin hore oo iska xidhnaan jirtay badanaa ama qofan u dhiibi jiray adigu si aan ganacsigayga u xidhmin ayaan u dadaalayay waxaana ku asaasnay share bay ahayd markii horeysay la Mahuraan oo wada wixii aan hayay iyo share-kaasan isku kaabno oo markaa shirkadda ay kusoo baxday shirkadda oo kala bar mareysana share-kii waa la igala baxay kadibna keligay baan noqday anaa markaa shirkaddii dib u asaasay oo aan heerka ay maanta mareyso sanadii barka ay jirtay aan kusoo gaarsiiyey la Mahuraan Technology كل واحد يشارك إن المركز هو رمي لبضن كسر شقايس أنتي أنا دي جناعسي أن أبورنا دوان شقايسان مركز ملها بدنا كسر شقايسي محا عقبة كهوري ما أما دوران كرتا واحد دوران كرنا يعني عقبة كهوري ما جناعسي وسمايستي مثلا خبرة هذول هيدا صوب براتب وسمايستي بسم الله
horta ganacsiga waxaa jira sabab badan uu qofka ku kalifayo inuu ku samaysto ganacsi. laba mid way noqonaysaa in qofkaasi khibrad uu leeyahay ganacsigan uu abuurayo iyo inuu uu doonayo inuu wuxuun ku soo saarto ganacsigan nolol maalmeedkiisa waxa xaqiiqatan anigu markii hore de shirkado badan iyo hay'ado badan baan la soo shaqeeyay 7 sano experience oo khibradan imka aan ku shaqeeyo lama horaan aan lahaa ayaan ku soo shaqeeyay markaan arkay in macaamiishii aan igu xidhnayd markaan shirkadaha ama hay'adaha u shaqeynayay ay u baahan yihiin aqoontan aan ku shaqeynayo ayaa niyaddayga soo dhacday waniyo inta dad u shaqeynaysid waxa wanaagsan adigoo meel furto oo shaqeysta oo macaamiishaadi direct kugu yimaadaan de wixii ganacsigan markuu yahay ganacsi xalaal ama ganacsi wanaagsan de ilaahayna uu ku barakeynaya ilaahayna aad dala saaratid marka sidaasan maskaxdayga iga timi inaan shirkadan tiknoolajiyada aan furto. marka waxaan oran karnaaba khibradaadu lahayd way ku fududaatay oo shaqadii sideedii loogu talagalay u socotay. yes kulley dhalinyarada marka inta badan waxay dhahaan dhulkeena shaqo abuur ma jiro shaqo lama helo taa adigu maxaad ka odhanaysaa? bismillah su-aasha horta waa su-aal aada u wanaagsan oo mar walba la isweydiiyo dhalinyaraduna isweydiiyaan haddii goobaha dhalinyaradu ay ku kulmaan ay soo fadhiistaan ama meelaha warbaahinada dhalinyaradu isweydiiyaan su-aashaas ay tahay waxaan uga jawaabi lahaa horta shaqo la-aantu waxay ku timaadaa wadankii oo mar walba la horumariyo dadkii waaweynaa in shaqadii dhalinyarada la siiyo iyo in dhalinyaradu khibrad u yeelan weyda inay ganacsi ay abuurtaan ama ay kusoo bandhigaan aqoontoodii ay soo barteen. marka waxaa jira had iyo jeer caalamku de waxay tixgeliyaan qofkan aqoontiisa aqoonta kama hadlayno jaamacad kama hadlayno secondary ka hadlayno qofkan muxuu skills u leeyahay non formal education baa iyo formal education. marka formal educationku waxa weyn waa waxbarashadan caadiga secondary-ga dugsiga dhexe iyo jaamacad. non formal education waxa weyn waa xirfadahan hoose ee la barto waxbarashada dadban baa la yidhaha oo ah bareefutadoo kale iyo koobaha trainada lagu bixiyo. marka qofkii experience-kii shirkadda ay u baahnayd markay arkaan inay qofkan uu leeyahay isla markaana uu kusoo shaqeeyey waxaa laga yaaba inuu isla markiiba uu shaqo helo. haddii uu experience-kii aan lahayn non formal education-kii khibradiina xirfadiina aanu lahayn waxa weyn waxay had iyo jeer ay sameeyaan qofkii way yara hakad bay geliyaan inay qofkaa shaqo siiyaan. marka shaqo la-aanta waxay ku imanaysaa un iyadoo madaxdii dawladdu ay dhalinyaradu had iyo jeer dib u dhigaan dadkii waaweynaana shaqo la siinayo da-da ahaa iyo dhalinyarada khibrad ama dadaal aada u badnayn aan qaban muxuu ahaa aan soo baranin. taas marka waxaan oran karaa dhalinyaradii marka jaamacadii ka baxaan markiiba inay shaqo helaan waxa ku adkeynaya iyagoon khibrad badan aan lahayn ay inay shaqo helaan oo adkaanaysa. xaggii investmentiga lacagta laftigeedina way soo gelaysaa inay ka hakad geliso shaqadii. waxaa iyada laftigeeda soo gelaya investmentiga xaggii lacagta oo qofki isagoo aqoon leh khibradii leh inuu waayo wuxuu ku maalgashado ganacsiga uu samaysan lahaa. taasina waa caqabada iyadana saddexaad soo gelaysa. bal lama huraan kale maamulihii lama huraan ama mulkiilihii lama huraan technology ayaa tahay lama huraan sida ay siyaabaha u shaqeyso bal daawadayaasha kale intii ku taqaano way ku taqaanaay inta kale caawa way ku daawanaysa. lama huraan horta waxay qabataa adeegyo badan oo service badan bay qabataa. service-kana waxay ku wada xiriirsan ama ay la taxalluqa wax weeyaan waa technology-da wax technology ka baxsan ma qabano. waxaana iibinaa electroniga waliba laptopnada userka aada macaamiisha noogu yaqaanaan computer aada u jaban isla markaana tayadeedu aada u wanaagsan yihiin. sidoo kale waxaanu sameynaa website-ada hostinada iyo dominadana waanu sameynaa
training IT na waanu sameynaa oo hay'adaha ama shirkadaha ama wasaaradaha u baahan in loo train kareeyo IT qof IT waanu qabanaa sidoo kale waxaanu sameynaa office support oo ah xafiiskii cilad ka haysta xagga teknolojiyada ama ha noqdo systemka database ku shaqeynayaan ama computerka cilada ka jirto iyadana waanu ka caawinaa serviceka waanu sameynaa marka waliba qaybtan in electronic wax ku baxay isagu waa online qofka online buu ka qaybsanaa website-ka credit card haduu leeyahay master card-kiisu isticmaalaya haddii kalena sad iyo mayda bixi payment-iga marka waxaan ugu geynaa koobtooda xafiiskooda ama gurigooda oo waxaba oran karnaaba meelaha Hargeysa ka baxsan baaba ayaa laga soo dalbadaa oo Puntland Ethiopia xitaa ilaa Muqdisho aan gaarsiinaa service-keena marka waanu sameynaa delivery-ga Axmed haddaan ka soo noqono kulay markaan barnaamijka furayay waxaad ii sheegtay in shirkadda markii hore share ku aasaastay share-kii xaguu ku dambeeyay ma markii meheradiina si fiican u shaqeynaysa la arkay share-kii lagaala noqday mise adiga siyaabo kale oo baxay maya share-ku waxay ku timi markii hore fikirkii aan keenay ayaan u soo bandhigay dadkii markaa share-ka la galay kadibna fikirkiiba ay ila qaateen aqoontiina anaa ku kala waday shirkadda marka shirkadda Melbourne markii hore ku jirna suuqa laami sawigiisa marka waan kasoo guurnay meel yaro laami ka dambeysaan u degnay marka adigu shaki deen meeshii ka cisoo kale oo mar haddii laamiga laga jeesto dadku waxay aaminsan laami meel laami eegayso unbaa ganacsi ugu socda marka waxay siraadeen mar haddii meeshii lagu yaqaanay shirkadda ay ka guurtay meel kale u guurtay problem baa ka imanaya markaas sidoo ba share-ku kala baxeen shirkadda marka alxamdulillah ana wixii lacag aan hayay iyo wax aan family ka wadiistayba isku daro dib shirkadii aan marka waxa oran karnaaba in markii share-ki ka baxay meheradii hakad baa galay dib ina dib soo aasaastay hadan hayo anu waxa iga goonayd inaan hadafkayga ka mid dhaliyo waayo haddana hadafkayga aanan ka mid dhalinaynin ma fureen lama horaan fikirkan anaa keenay anaana hore u sii socodsiiyay fikirkayga oo waayo waxaan markii hore shaqaalay marka haddii aan shirkadda aan dee qof anigoo kala duwan lahaa oo shirkaddu share-kii lagala baxo uu niyad jabi lahaa wuxuu arki lahaa dee meeshii oo aan shaqaynaynin kadib albaabadu wuxuu laws kaga tegi lahaaba saasuu niyadiisa kaga jabi lahayd laakiin anu waxaan doonayay maadaama aan shaqaalo soo noqday inaan shaqaalnimadeedii ku noqonay loo shaqeeyaan aan hore u sii socday inaan noqdo loo shaqeeyo marka hore waxaa la oran karaa muddada badan aad soo shaqeynaysay caqabado ka hor yimina loo shaqeeyo inuu dhibtu leeyahay iska arso aragtay ay markii dambe inuu hamigaaga ka rumaysay ku firgelisay wax weeyaan qofkan doonaya inuu shaqaalo noqdo waa qof waqtigiisa laga iibsaday 12 saacadood la shaqeeyo gelinka hore u tagaya 12 soo ruux hadana gelinka dambe u tagaya habeenkii soo ruuxaya macna wax weeyaan haddii xitaa qofkaasi qof family-ka ka xanuunsanayo wadaado qof iga xanuunsanaya ka manager-ka marka maskaxdiisa soo dhacayso inuu marmarsoonayo oo waranayo aniga kaaga dhuumanaya ma joog boorada waa ka dhabba dadna laga yaabay nimadku inuu tago qofkii oo family-kiisa oo nafta ka dhacdayba marka wuxuu qoftii dadkan had iyo jeer shaqaalnimada wax weeyaan barnaamijkeeda iska badan oo ma aha wax fudud ma aha in qof shaqaale noqdo mid kale mushaharka salary-gu qaadanayna wax weeyaan waa wax cayiman maalintii wuxuu soo saaray $20,000 marka soddon cisho $20,000 lagu dhufto isagu wuxuu leeyahay $300 bishii wax go'aan weeyaanba marka waxa la arkaa kan caqabad labaad baa dhalinyarada ka haysata haddaan kusii socono barnaamijkeena maxay tahay in marka hore horta ganacsi muxuu yahay dadka bini'aadanka qaarba waxbay ka aaminsan yihiin ganacsi muxuu yahay adigu maadaama maamuladii iyo shirkada aad leedahay horta ganacsi wax weeyaan waa ganacsi baa mushtar macnaheedu wax weeyaan wax la aasaasay oo la iibinayo dhowr noocna way noqonaysaa ama technology iibi ama dukaan iibi ama pharmacy iibi macnaheedu wax weeyaan waa wax adigu aad doonayso inaad ku adeegatid oo nolol maalmeedkaaga iyo horumarkaaga aad ku soo saaratid isla markaana uu yahay de wax aad ka run sheegaysid oo wanaagsan oo dadkuna ay had iyo jeer customers badan aad ku helaysid oo waxaagu noqdo wax ku oola
oo product aad soo saaraysid fikir cusub ha noqdo ama fikir hore u jiray oo aad wax kaga bedelaysid fikirkii hore u jiray ayaa ganacsi lagu magacaabo. adiga shaqsi ahaantaada ganacsiga meelaha yaraantii baad jeclayd mise inaad meel imka intaad weynaatay kugu dhalatay? horta anigu yaraantayda waxaan jeclaa dhalinyaro badan oo daawanaysa way garanaysaa yaraanta inay xagga technology-da oo waxaan garanayaa 2000 anoo yar 2000kii record baa baytariyadii maalin walba baytari baan usoo jirnay beriga baytariyada aada loo isticmaali jiray kadibna waxaa new baytariyadan mar walba recordkan la gelinayo lacagtan qarashkan badan baytari gaadhi usoo qaad marka geerish baan tego baytari baan ku dhisiya deedna wayla yaabeen maxaad ku falaysaa ina yar baa wataa gaadhina ma wadatid marka waxaan ku yidhi niyo record baa naftii keeno baytari mar walba usoo iibinaya marka waxaan doonayaa ku talaalo kadib sidii baan baytarigii recordkii minus plus-kii xitaa wax yar noona minus plus-na waa fahmayay kadibna recordkii reerkii muddo badan baan baytari iibsan oo baytariga ku isticmaalayeen waxyaabo badan markaa sameyn jiray haddii leen telefoon guriga noo yaalaan dhowr telefoon ka dalaali jiray madaxiyo waxbaan isku sameyn jiray marka yaraanta technology-dan aad u jeclaa oo aan taageeri jiray marka technology-dana mar haddaad laba mid bay noqonaysa inaad qof ugu adeegtid oo ugu shaqaysid technology-dii ama inaad adigu aad ku shaqaysid oo adigu aad shirkad aad la baxdid marka hadafkaygii yaraantii aan lahaa un baan iminkana aan sii wadaa adigu kolley shaqaale hore waa soo martay imkana loo shaqeeyaa tahay marka loo shaqeeyuhu kolley waad iska garanaysaa adigu imika dadkaa kuu shaqeeya sidaad ula dhaqataa? horta dadka anigii la shaqeeya xaqiiqatan sidii anigu layla dhaqmi jiray wanaagsanayd aan shirkadihii hore haydii hore aan kasoo arkay sida fiican ay soo dhaweeyeen aqoonteydana ay ku qanceen inaan la shaqeeyana ay habi ku hayeen un baan anina shaqaalahan iminka ii jooga aan ku farxay siday u shaqeynayaan wixii ay garan waayaan oon ka caawiya xagga IT-ga oo kale haddii waxyaaba problem ku yimaadaan waan ka caawiya wixii kale xafiiska markaa ka socda shaqana iyagun baa qabtoon. adiga Axmed ahaan hamigaaga ma inaad ganacsiga ma horaan technology aad sii wadidunba mise waxyaabo kale ku hamiyeysa adoonsan qabati? aniga horta waxaan doonayaa shirkadda horumariyo oo geeska Afrika iyo wadamada aan ka furo branchiyo hamigayga aad buu sareeyo oo waxaan doonayaa shirkadaha waaweyn Telesom iyo Dahabshiil iyo shirkadaha waaweyn aan kusoo halqabsano dadka dhalinyarada ay doonayaan ganacsi sameeyaan ay iyaga laftigooda meel hoose ka soo bilaabeen ganacsiga inaan anna shirkadayda Lama Huraan Technology ay heerka ay gaadho insha Allah marka hamigayga waa taa laakiin inaan macnii dad kale laftigooda waan caawin karaa shirkado kale oo imika laftigooda shirkado waan la shaqeeyaa oo xagga marketing ama IT-ga kale waan ka caawiya laakiin shirkado aan ka tirsanayo oo time-kayga ga luminaya maaha time yar un baan siiyaa ama maalin labadii week mar ama bishii wixii ay u baahan markaa ka caawiya. imisuu maraya Britisho sadan daqiiqo gaari steetan dib isu korea adigu meheradadan Lama Huraan Technology ma isleedahay gobolada Somaliland oo aad gaarsiisay? waxaan isleeyahay mustaqbalka insha Allah aan ku rajo weynahay imika horta gobolada Somaliland Lama Huraan servicekeedu way gaadhaa muxuu ahaa Puntland iyo Soomaaliya iyo Ethiopia wadamadaasna way gaadhaan laakiin waxaan isleeyahay insha Allah xafiisyo ay ka heli karaan service inta delivery ama gaadhi ama diyaar u saareynay inay si free ay ku helaan goobta ay joogaan ay ka soo qaadan karaan wixii u baahan. hadalkaaga waxay iga dhadhantay inaad aad ku leedahay Ethiopia Puntland oo kale marka ma xafiisya kaaga furan mise siyaabo kale aad uga shaqeysaa? may inama halka ii jooga agentia oo wala soo hadlaan marka waxay yiraahdaan shaygaas aan u baahnay computerka ama website-ka kadib haddii website uu yahayna dee website isagu wax weeyaan waa by online maaha isagu service aad qaadaysid maaha haddii laptop ay u baahan yihiin ama electronic kale
waxaan u saarnaa gawaadhidan yaree tagta Puntland Yasmin group oo kale ama bixin group kuwaasaan u saarnaa si yaroo hawl yar bay ku helaan markiiba computerkooda. weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeeni daawadayaalka weli nagala socotaan waa telefishinka caalamiga SBS TV xaruntiisa ku leeyahay magaalada Hargeysa. haddaan ka soo noqono meheradaadu adiga ma inaad ciladaha saartidii waxyaabahaasi ku koobantay mise dadkana waad sii bartaayo waad usii faa'iideysaa? ya waxa weeyaan wixii service aan dadku qabanno shirkadaha iyo NGO-yada ayaan xooga saarnaa. qofkii u baahan inaan training siino waxa weyn IT training ku jira service-keena waxa weeyaan dadkii baanu waxaan soo codsado shirkada ama hay'ad dadna xornaan qofkan training noo si kadib training ka wansiina laakiin meel ay dadku dhalinyaradu school oo kale ma aha oo lama huraan college waxa bay ka jirtaa Burco marka anagu macnaheedu dadku baan shirkadu ma ka caawinaa wixii ay service marka program ka haysta college uga jeeda college ka caadiga wax lagu baranayay laakiin waxa uga jeeda yani mid loo kale waxa jira in dad ay ku imanayaan oo kale ku oranayaan aan ka faa'iideysano sidana wax cilada uga saaraysi saas ma uga jeeday ka waa in waxa la yiraahdaa internship oo wax weeyaan qof 3 bilood kula joogo training oo qaabka xafiiska u shaqeeyo kale iyo training ku qaadanayaan marka kaliftigeedu waan siinaa dadka u baahan inay nala shaqeeyaan oo internship ahaan oo ay bartaan websites loo sameeyo kale sida xafiiska looga shaqeynayo qaabka u socdo sida macaamiisha loola dhaqmo customers loo soo dhaweeyo customer care-ka marka waxa waan qofku nala joogi karaa bil ama 2 bil ama 3 bilood intuu ku fahmayo systemka. adiga baan kaaga mahad celinaya adiga Axmed ahaan ma jirtaa ganac adiga daayar bad kale ganacsi abuuratay gaar u leedahay ma jirtaa dhalinyaro kugu dayatay oo maanta le halkii Axmed maraan marno xaqiiqatan horta dhalinyaradu way hambalyeeyaan oo runtii way ku farxaan step kan marayo anigoo dhalinyaro marka way dhici kartaa dhalinyaro kale oo iyaguna ku hamiyay in step ka aan marayo ay soo gaaraan waayo ani laftigeyga dad shirkadayga sareeyaan baan ku hamiyay inaan gaadho heerka ay marayaan wax walbana waxay leeyihiin bilow ma jiro qof doonaya inay mar qura shirkadiisa u noqoto shirkadaha waaweyn ee imika jiro kale mar qura ay noqoto wax walba base oo laga soo bilaabo marka samirkiina ula socdaayo wax weyn in loo samro sheegi marka way jiraan dhalinyaro badan oo anigu ma garan karo laakiin igu dayanaysa inay stage maanta aan marayo ay igu daydaan. Axmed inoo guntiga gabagabadii barnaamijkeena dhalinyaradii maanta ku sii dhow fariinta dhalinyarada xaggan u marinaysa maxay tahay? fariintan dhalinyarada u marinayo waxa weeyaan dhalinyaradu waxa weeyaan waa maskax fresh waana aqoon fresh oo waxa weeyaan waxa adduunkan kala hagaya waxa weeyaan waa dhalinyaro waxa cusub ku soo kordhinaya caalamka dunidana ku loonayna waa dhalinyaro dhalinyaradu waxa weeyaan waa laf dhabarka wadanka dhalinyaradu waxa weeyaan hadba qaabka u fikiraan oo wadankooda ku fikiraan oo haddii dhalinyaro soo jeediyaan fikir dadku waaweynna fikirku ma kasoo daba jeedinayaan marka dhalinyaradu waxa weeyaan hayse odhanina dhalinyaro waxa ma qaban kartaan dhalinyaradu waxa weeyaan madaxna way noqon kartaa waxna way ka bedeli karaan waxaan u yaala shuruucda hadday noqoto in ganacsi ay samaystaan ama inay madaxda ku beeraan wadanka taliyaan intaba way samayn karaan marka dhalinyaradu imika horta madaxweynaha horta aad baan ugu mahadnaqayaa dhalinyaradan uu magacaabay wasiirada waayo dawladihii naga horeeyay dad waaweyn baa loo magacaabayay marka taasaa keenaysa niyad jabkii dhalinyarada inay wadanka ka dahriibaan haddii shirkadii noqoto xitaa shirkadii dad waaweyn wax qoranayaan waa inuu qofkii gaadhaa dhowr iyo 30 ama 40 jir qofkan aan shaqada u igno qofka duka yari ma shaqayn karo ma shaqayn karo marka problem wax weeyaan markii shaqaale la qorto wax la oranayaa waa dhalinyaro waa dhowr iyo 20 jir ama qeyl mas'uul baa oranaya marka hortooda ka oranaya dad maadaama aan maamulkan managerada hayaan aan hayo wasla fahmayna wixii marka
problemku waxa ganay niyad jabka in dhalinyarada la niyad jabiyo laakiin iminka dawladdan cusub waxay u egtay dawlad dhalinyaradu ay dhiirigelinayso shaqo ay ku abuurayaan marka waxaan oran lahaa dhalinyarada niyad jabina CV-giina meel walba geeya ganacsina ciddii awoodi karta in ay ganacsi samaystaanna oo lacag ay haystaanna inay iyagu maal gashadaan wixii aqoon ay u leeyihiin inay soo bandhigaan wixii experience lana waa inay imika meelahooda CV geeyaan marka alxamdulilah wadankeenu nimca fadhidee ha ka niyad jabina imika kale tahriibkii imika uu kasii daro mulkhayro waxa weyn dadkii waa la gubaya imika berga hore waa la xirxir jiray imika dadkii caadi baa loo shiilayaaba qaarna waa la kala iibsadaa qaarna waa la iibsanayaaba marka dhalinyarada waxaan oran lahaa inta keliyihiina iyo beerkiina la iibsan lahaa ama in la gubi lahaa oo tusaale aba imika ku bixiyaan ay dhahdaan maartan hebel waa la gubayaabe markaas kuwa ka dambeeya lacagta loo soo shubo degdeg marka waxaan oran lahaa dhalinyaradu tahriibka iska daayaan wadkooda ka shaqeystaan oo ha iimaansadaan marka aad baan usoo dhaweynaya dhalinyarada rabta inay ganacsi ka abuuraan wadkooda rabana inay ka shaqeystaan wadkooda aad baan usoo dhaweynaya aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya sida waqtigaaga qaaligaada igu hurtay daawadayaal inta waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeen dhalinyaradii maanta toddobaadkan aan kusoo qaadanay sideebaad ganacsi u samaysan kartaa barnaamijkan alaaba waxaa idila socodsiisa anigoo Mulkhayr Saciid Cali dhanka kamarada waxaa iga caawinaya Cabdiraxmaan British habeentii isku dubaridkii Aamin Axmed Saxardiid waxaan marnaba aan ilaawi karin agaasimaha barnaamijka la'aantii aan suura galeen Xanad Caraala Cayuuni barnaamijkan barnaamij la mid inta ku kulmeen waxaa idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh